markuu ku dhashay miyiga ama baadiyaha gacanka Wisile ku yaala buurta Suurad asagoo ah ubadka afraad ee qoyskiisa oo ka koobnaa 6 caruur ah aabe iyo hooyo ayuu 2 sano kadib geeriyooday aabihiis wuxuuna ku garaadsaday xoolo raacanimada iyo nolosha baadiyaha ee agoonnimada u dheertahay markuu soo hana qaaday ayaa adeerkiisii Xuseen oo Ceerigaabo ku noolaa loo geeyay oo wax u barto noloshiisii wacneed wuxuu ku qaatay Ceerigaabo ilaa mar dambe loo soo wareejiyay Hargeysa iyo adeerkiis kale oo ahaa Cabdiraxmaan si tacliintiisa uu si anbaqaado heer sarana uga gaaro xarun boarding school ah oo ku taalay Hargeysa banaankeeda ayaa lagu tuuray asaga iyo walaalkiis ka yaraa oo la socday muddo 9 bilood markii uu dhiganayo college-kaasi oo la qabsigiisa dib iyo rafaad uu ka maray balse oo la jaan qaaday markii dambe ayuu galay nolol xanuun badan oo noloshiisa oo dhan bedeshay waana tan sababtay in sheekadiisa beedan la wadaago asagoo dhex jooga college-kiisa ayuu maalin maalmaha kamid ah salaadii subax markii uu kacay dareemay qandho ama xumad aad u daran markii uu ku yiri maamulkii fasaxa aan aad reerkayga waan xanuunsanahay waxa lagu yiri warjoog iskuulka oo wax baro ayaga u haystay inuu ku marmarsiyoonayo jirada haysay si uu u baxo mase ahayn xalka saas muddo 3 maalin markii uu qandheysnaa heer uu awoodi waayay inuu doonto cuntadii ayaa la fasaxay oo loo diray guriga adeerkiisa oo Hargeysa ku yaalay guriga markii uu tagay oo wax yar joogayna waxaaba isku soo kogay xubnihiisa sida gacmaha iyo lugaha isbitaal ayaa markiiba la geeyay waxaana lagu yiri waxa ku dhacay xanuunka majaajiska kaas oo dadka qaarkood ay u dhintaan kuwana maskaxda ku waayaan halka boqolkiiba in yar oo kamid ahna ay u curiyaamaan sida isagoo kale wuxuu yiri halkaas ayaa waxa iiga bilaabmay maalmihii nolosheeda ugu murugada iyo tiraanyada badnayd markii ugu horeysay oo intii aan noolaa la idhigo sariir ayay ahayd meeshii la idhigay baan ku qaadan jiray daawooyin la ii qoray maalmo adag oo aan mari doono imtixaanka weyn ee nololeed baan halkaas iiga bilaabmay nolol cusub oo murugo iyo tiraanyo badan baa ii curatay waxaan noqday mid nolosha ka doorbida geerida inaan nolosha ku noolaadana waxaan ka jeclaystay inaan iska dhinto markii aan sidaas u hadlay uma jeedin inaan waayay cid dareesho ama garab istaagta sidaas ma ahayn ee qoyskayga intii ila joogtay aad bay iigu hagar baxday xaqiiqdii gabi ahaanba way isbedeshay nolosheedii farxad iyo reereynta ahayd waxaan noqday sariiryaal aan isloodin karin oo aan awoodi karin inuu isrogrogo oo hadba jirkiisa sidii uu doono u dhaqaajin karo haday xitaa kaneeca yar ee cuntana iskama fujin karin oo iskama xoqi karin kadib waxa ay bilaamatay nolol maamulkeeda aniga iga baxsan yahay wax kasto aan markii hore kaligay qabsan jirana hadda qof ama qofafyaal ayay ku xirmeen cuntada qof baa afka igu goraya ama ii gelinaya sida ilmo caruur oo kale hadii aan nusqusho u baahdo dhowr qof baa i qaadaya igana soo celinaya markii aan damco inaan soo qubeysto dad ayaan sugayaa waqtiga doonaan ha imaadaane waxba yaana warkii idinku daalinin nolol cadaabta iyo la muuqatay baan galay dadku 2 nooc ay u qaybsamaan qof murugada xanuunka iyo duruufaha ay ka awood bataan oo isdiiba iyo mid la dagaalama hardanka nolosha oo hadafkiisa inuu ka dhaweeyo isku hawla dib kasta uu maro anigu waxaan noqday mid qaata wadada nolosheedaan ku sii wadan lahaa oo waxaan u dulqaatay taaha aadaar